iyo muranka siyaasadeed ee la xiriirta doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanku waxa ay soo bilowdeen Juun 27 kadib markii gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo xilhiintiisu ay ku eg tahay 6 Julaay 2021 ay baarlamaanka ka hor sheegtay in aan doorasho qof iyo cod xilligeeda ku dhici karin waxaana xigay isku day iyo dadaalo madaxtooyada ka socday oo awood badan lagu siinayo baarlamaanka si xildhibaanada xilkooda idlaaday go'aan uga gaaraan nuuca doorasho ee dhici karta. taxanaha shirar ka bilowday dhuusamareeb kuna dhammaaday muqdisho oo watay muujado siyaasadeed iyo isbedelo waali ah kadib waxay howshu isugu soo biyo shubatay in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo aan wax badan ka duwaneyn doorashadii dhacday 2016. madaxweyne farmaajo oo walaahow siyaasadeed ka qaba in dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo uu ku matalo xeerka awood qaybsiga dalka ee 4.5 ay ka soo bixi doonin xildhibaano taageersan ayaa ku adkaystay in la kordhiyo deegaan doorashada oo halkii ay ka ahayd 2016 hal deegaan doorasho laga dhigo 2 goobood maamul walba. ololayaasha iyo dadka la fagura doorashooyinku waxa ay qabaan in ujeedada madaxweynaha ee kordhinta deegaan doorashadu ay tahay suuragalnimada hab sahlan oo madaxtooyadu go'aan uga gaari karto xildhibaanada baarlamaanka ka soo galaya gobolka Gado. guddiga doorashada federaalka oo horey dhaqan u ahayd inuu ka kala yimaado xafiisyada waaweyn ee dowladda iyo bulshada rayidka ayaa madaxweynuhu u soo magacaabay dhalinyaro ka tirsan nabad sugidda iyo shaqaalaha rayidka ah kuwaas oo caan ku ah taageerida madaxweynaha ee baraha bulshada. sidaasna waxaa sheegay musharaxiinta iyo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka. diidmo adag oo midooda musharaxiinta iyo bulshada rayidka ka yimid ee ku aadan guddiga doorashooyinka ee xukuumaddu ay magacawday iyo qorshaha fila Soomaaliya ee dib u doorashada madaxweyne farmaajo ayaa abuuray xaalad cakiran iyadoo hogaanka bulshada rayidkuna ka digeen suuragalnimada inuu qarxo dagaal sokeeyo oo ka dhasha doorashada oo la boobo amaba ku qabsoomi weysa xilligeeda. isjiijid iyo xasilooni la'aanta siyaasadeed ee ka dhashay hirgelinta heshiiska iyo habraacyada doorashooyinka oo loo arko in xukuumadda dhexe ay sabab u tahay waxa ay horseedeen siyaasad kacsan iyo qalalaasa gaaray dowlad goboleedyada kuwaasoo meel xundhigay kalsoonida iyo wada shaqaynta labada heer ee dowladda. Jubbaland dowlad goboleedka Jubbaland waxay ka kooban tahay gobolada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu aaminsan yahay in xiisada ka taagan gobolka Gado ay sabab u tahay madaxtooyada Soomaaliya oo ciidamo aan ka amar qaadan Jubbaland u gacan gelisay Garbaharre. Jubbaland waxay ka walaacsan tahay cidda maamulaysa kuraasta golaha shacabka ee doorashadooda lagu qabanayo magaalada Garbaharre. horaantii bishii Maaj 2020 ayaa xukuumadda dhexe waxay ciidamo heer federaal u dirtay gobolka Gado iyadoo ciidamada xukuumaddu geesa gobolka iyo ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland ku dagaalameen gacan ku haynta gobolka. ha yeeshee ciidanka dowladda federaalka ayaa xoog kula wareegay Gado marka laga reebo dhul ay xukuumaan dagaalamayaasha al-shabaab oo gacantooda hore ugu jiray. sida ay mustaqbal media u xaqiijiyeen madax xilkas oo ka tirsan fila Soomaaliya go'aanada la xiriira arrimaha Jubbaland waxaa si toos ah u qaadanaya madaxweyne farmaajo mana jirto cid kale oo ka mid ah dowladda oo talo iyo tusaale ku leh sida loola tacaalayo xiisada siyaasadeed ee madaxtooyada kala dhaxaysa dowlad goboleedka Jubbaland. xaqiiqdaasina waxay soo ifbaxday kadib markii ra'iisul wasaarihii la eriyay ee baarlamaanka kalsoonida kala noqday Xasan Cali Kheyre oo isku dayay inuu dhexdhexaadiyo madaxweyne farmaajo iyo Axmed Madoobe. gobolka Gado oo dhaca xuduud beenaadka Soomaaliya la wadaagto dowladaha Itoobiya iyo Kenya ayay suuragal tahay in mar kale dagaal ka qarxo maadaama ay joogaan gobolka ciidamo Itoobiya leedahay oo aan ka tirsaneen howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. ciidamadaas Itoobiya ayaa taageeraya dagaalka ka dhanka ah dowlad goboleedka Jubbaland oo lagu eedeeyay in madaxweyne farmaajo uu qorsheeyay iyo dowladda Kenya oo taageeraysa madaxweynaha Jubbaland iyadoo dadka ka faalooda nabadgelyada gobolkuna ay qabaan in awoodaha si shisheeye ay saameyn xun ku yeelan karaan xasiloonida gobolka. siyaasad ahaan Jubbaland waxay shuruud adag ku xirtay magacaabidda xubnaha guddiga doorashada heer dowlad goboleed waxaana shuruudahaasi ka mid ah in ciidamada dowladda federaalka ka jooga gobolka Gado laga qaado isla markaana gacan ku haynta gobolka dib loogu celiyo Jubbaland. dhinaca Puntland ammaanka iyo siyaasadda oo isdhexgalay 3 November 2020 baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa si aqlabiyad leh waxa uu isugu raacay in xasaanada xildhibaannimo laga xayuubiyo shaqadana laga eriyo 8 xildhibaan oo loo heesto eed la xiriirta
maleegidda foodo iyo rabshado ka dhaca baarlamaan goboleedka. tallaabadaas oo ah mid uguba ayaa la aaminsan yahay inay xiriir la leedahay iskuday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ay xiriir kula sameynayaan xildhibaanadan, iyada oo sida ay qabaan saraakiil ka tirsanna puntland ay ujeeddadu ahayd diyaarinta koox siyaasadeed oo taageersan madaxweyne farmaajo, islamarkaana cadaadis ku saarta maamulka puntland oo si xoogan uga soo horjeedo qorshaha doorashada ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya. puntland waxay leedahay maamul sal adag oo muddo ka badan 20 sano dhisnaa, sidaa darteedna falanqeeyaasha ammaanku waxay aaminsan yihiin inuusan jiri karin walwal dhanka amniga ah iyo inuu dagaal ka dhex qarxo, balse dhowr dhacdo oo ay ugu dambeysay khilaafka baarlamaanka iyo madaxtooyada waxay muujinayaan inaan la fogaysan karin qalalaaso siyaasadeed oo ka dhaca Garowe. mas-uuliyiinta puntland waxay eedda dhacdooyinkaasi dusha uga rideen dowladda federaalka oo ay sheegeen inay dadaal iyo lacag ku bixinayso burburinta dowlad goboleedka puntland. dhinaca galmudugna waxaa yoyootan uu ka jira halka madaxweyne qoorqoor uu ku shaqaynayo dhuusamareeb ama Cadaado. inkastoo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu dhoolatus weyn ka sameeyay siyaasadda federaalka, caqabadaha ka heesa doorashada waa ka badan yihiin gobollada kale marka la eego jilicsanaanta amni iyo dagaalada qabaa'ilka ah ee sii kordhaya. warar ay hesha mustaqbal ayaa sheegaya in dhuusamareeb uu ka bilowday guuc siyaasadeed oo ah qorshe la hadal hayo oo madaxtooyada loogu rarayo Cadaado kadib markii ay hoos u dhacday kalsoonida Qoorqoor uu ku haysto dhuusamareeb iyo ammaanka magaalada oo xumaanaya kadib markii ay ku soo dhowaadeen xoogaga al-shabaab oo weeraro ka fuliyey gegidda diyaaradaha xilli uu Qoorqoor ka dhoofayay. walaaca ammaanka keliya kuma koobna ee sidoo kale waxaa jira hadalhayn la xiriirta mooshin ka dhal ah madaxweyne Qoorqoor oo ay gadaal ka riixayaan dhinacyo ay ka mid yihiin musharaxiinta madaxtinimada ee ka soo jeeda galmudug oo hooshaasi in muddo ah waxay ka socotay Muqdisho. walwalka qalalaasaha la xiriira doorashada ayaa sidoo kale ka jira magaalada Gaalkacyo oo ah xarunta labaad ee loo aasteeyay in doorashadu ay ka qabsoonto. galmudug oo lagu tirinayo deegaan madaxweyne farmaajo uu ka heli doono kuraas badan ayaa waxaa soo muuqanaya isbeddello degdeg ku fideeyey xaaladana wax badan ka bedeli kara. Hirshabeelle marka la eegana muddo toddobaad ku dhow waxaa beledweyne ka socday mudaharaadyo rabshado wata oo lagu diidan yahay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe oo qorsheynaya in xaflad caleema saar uu ka samaysto magaalada beledweyne. xiisadda ayaa salka ku haysa awood qaybsiga beelaha Hirshabeelle oo wax laga bedelay kadib markii hal beel ay wada heshay madaxtinimada iyo magaalo madaxda maamul goboleedka oo dhammaan la aaminsan yahay in awoodihii ay ku wada urureen magaalada Jowhar. beledweyne oo ka mid ah meelaha loo aasteeyay in xildhibaanada laga soo doorto ayaa wajahaysa masiir mugdi ah, waxaana suuragal ah in dagaal sukeeyo uu ka dilaaco, sida ay ka digayaan siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda beledweyne oo si xoogan uga hadlay sida ay wax u socdaan. awoodda ciidamada xoogga dalka ee Baraawe iyo kaalinta ciidamada Itoobiyaanka ah ee ku sugan labada goobood ee doorashada xildhibaanada federaalka loo aasteeyay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo iyo Baraawe ayaa wajahaya xaalad amni oo dowladda federaalka siinaysa mudnaan sabab u noqon karta guusha xildhibaano taageersan madaxweyne Farmaajo, balse madaxweyne Lafta Gareen waxa uu ka leeyahay aragti kale sida ay xaqiijiyeen ila wareedi xilkasta uu ku dhow xafiiskiisa. mustaqbal ayaa ogaatay in Lafta Gareen uu go'aansaday lana wadaagay madaxweyne Farmaajo in aan loo gacan dhaafin doorashada deegaanadiisa, balse uu tixgelinayo codsigiisa, taasi oo dhalisay walwal kale oo xaalkiisu noqonayo in madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa hubiyaan kuraasta taalla Baraawe oo aysan xoog badan gelin kuraasta taalla Baydhabo. Baraawe waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo maamul ahaan hoos yimaada taliska ciidanka, taas oo sahlaysa in federaalku saameyn xoog leh ku yeesho ammaanka doorashada. dhanka kale ciidamada Itoobiyaanka ah ee aan ku jirin AMISOM ee ku sugan Baydhabo ayaa la filayaa inay dib ugu laabtaan dalkooda oo xiisado gudaha ah ay ka bilowdeen, taasi oo iyana su'aalo badan gelinaysa saameynta xoogan ee fila Soomaaliya ku leedahay doorashada xubnaha baarlamaanka ee la filayo inay ka dhacdo Baydhabo. arrintaas ayaana kordhinaysa walwalka laga qabo in isku dhac hubaysan uu ka dhaco magaalooyinka Baraawe iyo Baydhabo, sababtiisuna ay tahay doorashada beelaha gobolada waqooyi iyo doorashooyinka Soomaaliya. wax cusub ma aha in kuraasta xildhibaanada gobolada waqooyi uu saameyn weyn ku yeesho madaxweynaha markaas talada haya ee doonaya in mar kale la doorto, maadaama xulistu ay ka dhacayso Muqdisho, ammaankana ay gacanta ku hayso dowladda federaalka. balse sanadkan waxaa ka cusub in kaadiriintii reer waqooyi ee midnimada u taagnaa
ay bannaanka ka joogaan habraaca xulista ergada iyo doorashada iyo sida ay doorashada u qabsoomayso. kooxda uu hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare oo ay ka dhex muuqdaan xildhibaano iyo wasiiro hore, balse astaan u ah midnimada ayay u muuqataa inaysan ku soo bixi doonin saaxadda siyaasadda, beddelkeedna ay geli doonaan dhiig cusub oo dhallinyaro ah iyo siyaasiyiin cusub. khatarta arrintaas ka dhalan karta ayaa ah in dhammaan siyaasiyiintu ay dib ugu laabtaan Somalilan oo ay miisaan u yeelaan maamulka gooni iskutaagga aaminsan ee Somalilan, halkaasina ay ku soo afjaranto qadiyadda midnimada Soomaaliya. ugu dambeynna marka la eego colaadda Gedo oo leh weji qabiil, kaalinta Kenya iyo Itoobiya colaadahaas, rabshadaha beledweyne iyo go'aanka Guudlaawe oo taageero ka helaya madaxweyne Farmaajo, xasaaradka qaadida xildhibaanada Puntland ee gacansaarka la leh fila Soomaaliya, colaadaha qabaa'ilka ah ee Galmudug iyo qorshaha qoorqoor ee Cadaado, go'aanada cusub ee lafta gareen iyo qorshaha Baraawe iyo barabixinta kaadirka midnimo doonka ah ee Somalilan waxa ay maangal ka dhigaysaa qeeladhaan.